بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضيدا أصحابتا ضدك كلا كنت حن channel كنا استدكين كيوتيوب channel. وحنيكون سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كليب كان إن شاء الله تعالى وحنقول ترجلي إن أنا أقول فائديو برشة الصوماليات meel walba ay joogaan gaar ahaan bahda waxbarashada haddii ay naqan lahaayeen maamul macallin waalid iyo arday sidaanu wada ognahay waxbarashadu waxay leedahay steps ama wado loo maro wadadaas waxbarashada loo maro waxa kamid ah in ardayga uu helo manhaj mudarris waqti intaasoo dhan oo keenaysa in ardaygu uu najaxo ka muuqaalkan waxaan rabaa inaan isbarbarnay ku sameeyo ardaydii hore iyo kuwa maanta jooga fursadaha la haysto iyo ciladaha jira marka aad si dhow u wareysato ardayda Soomaaliyeed ee maanta wax baranaysa ama macallimiinta Soomaaliyeed ee maanta ardayda wax u dhigaysa cabaad badan baa ka jira عبادكاس حداري هاي أرضي إنه آت وجود بيها مادوينكي إنه فهمه مادوينك سجارة مادوينك سينسكا سيدا بيولوجيكا كيمستريكا فيزيكسكا مادة حساباتك وكله علت بدن أو أرضي وكل شيء إنه مادوينكي آت وجوديته وقت بدن وجليو إسلامر كنا سيد الربي وصن ولي أرضي وصن هين بامو خانس وحرب أمريكا إن استولز تاج قلب كاس كو وحلاي هاي علادو وحي نقاني كرتا وسيدان يقولت هاي إن أرضه بيس كهوسة مادوينكي وكليتو سيدا درادد وباهي هاي أرضه إنه إصدبق قبطة مركا وإسبيزيكلي وأرضه إسكاسوليس لابو وحالي كرتا أرضه إنه سنحوق سارن مادوينكا تصالح ardaygu macadkiisa u soo dhigtaba maadooyinkii uusan ku celinin uusan private dhiganin uusan revision sameeynin biritool hadana fasalkii uu sida ku xaadirayo waxa kaloo dhici karta in macallinkii naftirkiisa way of teaching iyo habka ardaydu wax u dhigay in ay iyadu naftirkeedu cilad ay ka jirto oo laga yaabo meeshaasna problem inuu ka jiro laakiin problemkaas insha Allah ta'ala waxaan filayaa inuu san aad u badnayn sababtoo ah ardayga ama macallinka maadada dhigayo waa maadada takhasus u yahay labo maadada marka la dhiganayo ama macallinku soo dhiganayba oo kulliyada tarbiya ama kulliyada waxbarashada education uu ka soo baxayna maadooyin habkii wax loo dhigayay uu soo qaatay halkaas ciladaas way yaraan kartaa marka waxa kale oo jiri karta ardayga oo aad ugu mashquulsan social media waa sida badan oo ardayga TikTok iyo Instagram iyo Facebook iyo WhatsApp iyo email iyo Telegram intuu waqti ku mashquulsan yahay iyo Messenger inuu ku waqti ku jiro oo haasaawid iyo wax firfiris iyo muuqaal sameyn iyo TikTok feer iyo maxaa la soo dhahay uu ardayga ku jiro baa waxa laga yaabaa in halkaas ay iyaduna problemka ugu badan oo maanta caqabada ugu badan ee waxbarashada maanta saameynta koowaad ku ah waa dhinaca marka ardayda waxaan kula talinayaa in isticmaalka baraha bulshadu aad u yareeyaan haddii isticmaalayaana ay wax wanaagsan ka raadiyaan sida cashir inay ka daawadaan oo kale sida janaalada Soomaaliya hadda muuqaalada ee ku sharxa maadooyinka sayniska oo janaalkiga ugu horeeyo uu ku jiro macnaha labo ardayga inuu quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan ka akhriyo si marka qulubtii u qashuucdo ardayga Ilaahay subhanahu wa ta'ala umar walba Ilaahay weydiisto inuu Ilaahay faham waasic u siiyo maamulka kale waxa laga yaabaa cadays uusan ardaygu saarin cilado badan oo jiro oo ardayga iskuulka mukabaxa iyo waxyaabahaas laakiin ardayga lacagta laga qaadayo ayaa waxaan rabaa inaan dhaho ardayow barwaaridka lacagta aad ka soo qaadayso ee maamulka uu qaadayo ee macalinka la siinayo ee adiga aabaha mar walba uu bixinayo ama waalidka uu bixinayo bal isku day in aad adigu wax ku barato carabtu waxay tiraahdaa man daraba al-ula sahara al-layal ninkii rabo inuu meel sare gaaro habeenuu soo jeedaa بل اسكو ضيا إن وقت جلسان حق أخرنته لأنه مهما كثرت مضاعتك ازدادت علمك مرة وحاجر سمرك العلم معناها قاعدة أورانيسا
qofka cilmiga ma ahan wuxuu asaga u hayo wuxuu mudaalaceeyo uu bixiyo ayaa cilmiga ah marka insha allahu tacaala waxaa idin kula dardaarmaya waxay tahay ardayay in isteelkii waxbarasho ama haykalkii wax akhrineed bal wax ka bedeshaan si gaara ardayda foorka iyo ardayda form 3 ee isjeedaadka ayaan rabaa inaan la hadlo bishan hadda waa Janaayo dhamaatay ama dhamaada February bilaabanaysa February March April waxa laga yaabaa 3 bilood kadib in imtixaankii nationalka aad gasho bal in aad dib isku qiimeyso bal imtixaanka nationalka ee wasaaraddu qaadayso ama state-ka ama gobolka uu qaadayo ama noqdo goboleedyada ama noqdo maamulka gobolka Banaadir imtixaanka gobolka Banaadir qaada bal in imtixaanka 8ka kan 4ka waa la wada leeyahay wasaaradda waxbarashada qaadaysa bal in ardaygu uu juhdi geliyo wax akhrinta juhdi uu geliyo in uu macnaa mudaalaca uu sameeyo juhdi uu geliyo inuu wax raadiyo ardaydu waxaan kula dardaarmaya waxay tahay in aad isdhistaan 3 bilood juhdi aad isgelisaan oo meeshii ugu dambeysay ah sababtu waxay tahay in aad imtixaanka ku baasto waxay qiimo weyn ugu fadhidaa waalidkaaga waxay qiimo weyn ugu fadhidaa adiga oo ah imtixaan form 4 inaad mar kala fariisanin wadaad saaxiibkay oo macallin ahaa wuxuu jiray Ustaad Cabdullaahi Fooley wuxuu jiray ardayga form 4 markuu la hadlay wuxuu dhahaa haddaad hadda wax dhageysani weyso form 4 ayaa mar kale soo fariisanaysa ya form 4 2 ayaa mar kale fariisanaysa bal isku daya arday walaalayaalow in aad wax akhrisaan in aad cibaado badan la imaadaan si ilaahay idinku caawiyo si ilaahay mar walba aad tuugtaan ilaahay gacmo u horsataan in ilaahay cilmiga idin furo annaga dhanba ilaahay cilmiga inoo furo ilaahay mar walba aan ka tugnaa la rabaa marka ardayga oo wax baranaya waxa laga rabaa in uu dadaal dheeriya uu ku bixiyo inuu wixii uu fahmi lahaa sababtu waxay tahay today hadaadan fahmin britol waa ku maqan tahay haddaad maanta fahmin britol waa ku dhiban tahay haddaad maanta wax badan akhrinin britol ayaad problem kala kulmaysaa bal isku daya in aad ardayahay wax badan akhrisaan macallimiinta iyaguna waxaa leeyahay macallinow ardayda isku day inaad u hagar baxdo ardayda intaad taqaan oo ilaahay ku fahansiiyay in aad u sheegto oo ardayga cilmi kaliya oo waxbarashadii maadadii aad bas u dhigine ardayga mentally psychological in ardayga ula hadasho ardayga in aad wacyi ahaan ardayga aad kobciso ardayga inaad ka dhigto arday himma caaliya leh inaad ka dhigto ma fahanteen waxaan laga rabaa waxay tahay marka in dhinacaas wanaagsan aan wax ka eegno waxyaabaha naga qaldan haddaynu macallimiin nahayn inaan annagan update garayno aan iska saxno ardayda aan la tacaamulno oo ardaydii aan macnaha iyagana aan la dhex galno discussion aan la samayno weygii aan wax ku wadno aan wax ka badaraasayno aysan naqan anigaa dhahay ee lagama daba hadli karo waxaa kaloo oo rabaa inaan halkan fariin ugu diro waalidiinta Soomaaliyeed aadan ugu mahad celinaya waalidka waana dhaleen waynu nahay insha Allah ta'ala iyagana waxa leenahay dawa mathwaakum وتبوأتم مقعدكم من الجنة ودداشين بل إذا كان أرديد إنك كونتروشان ووحبرشدي كونتروشان بل اسكو ضيع لأنه مالمها أرضي لعدت وقب بحنيس أجود وقب بحنيس وحواي بريتو لنا انتفاع هذه مرة أرضي وصن وحبي انتفاع وصن كيرين وحواي بوربلام كذا اللي هاي إن شاء الله تعالى مركا إن عند ذلك السمينو أي سوقنا أنا مركا على بكرة سد كيميكا عدي بلان قاضية إن أن إكسايس إيو عشرة قابل ومهمة عن channel إن شاء الله تعالى يبيج كيجا على بكر وفيسبوك عادة استعماله يستاذ كيميكو أيدين سو إن شاء الله تعالى وهذا اللي يكون أتكفى أيدي ستان إن شاء الله أرضينا كلام أطول شيء كريسان وغير كاسكو تعامش إسكو كالميسان وحبضا لا أخريو دروس تمركا قبواي بل أن إسكو دينو إن أن وحبضا أخرينو إن أن عشرة المضالعينو كوا هدا إنه قادرينو إن أن عشرة الدول قل أن كسمين ومر كتاب منهاج الأخرين ترى حد يجري كتاب الدول قل على غنية لابو وقت على الأخرين تري معنا صبحي أما قلب كيو كذا صبحي إنه الأخرين قلب كوا الأخرين مركا عشر كمركا صبحي إن هلا قاتو بري فدده هلا تجو وحلا أخريو إن وقت بدن هلا جلي وح أخرين هبين كيو كلا أرضي وحنا كل دارمان أرضي أيو سيحاني كروي هاي إنه بعد العشاء سيحن سمركا 9 ساعة 8 ساعة وصوكعو وحي إلهي فانسيو قرآن وأخرستو
عباده وسميسن كان وسميستو كدبنا عشرة وآخره أما بعد العشاء مركو هولي إسكا دميستو جدول سميستو وحو آخره إلى 4 ساعة كدي 4 ساعة إسكا سيحضو حل في عن صلاة وسوكعو حل ما دو آخره أو تايم تيبل صحة وآخرنا وسميه صوتو عيتاي maalmaha yar ee ardaygu tahay ayaa waxaa la rabaa in aad isbarto wax akhrinta koow in aad macnaha meel sare inaad hiigsataa la rabaa oo himma caaliya aad ka lahaato waxbarashada insha allahu tacaala macallimiintiina aad kaalmaysataan ilaahay jalla wacala aad mar walba kaalmo weydiistaan asaan ugu filan macallimiinta aad la saaxiibtaan oo aad kala saaxiibtaan in ay macnaha daraasadii xagga daraasadda oo si cashirka idinku adkaa idinku celi karaan oo macallinkii aan laga xishoonin لأنه المستحي والمتكبر لا يتعلمان وهكذا ربا أرضينا الصومالية بدنا هذا الحيوان الذي كحنت وحكمل إنا تاو استعماشان قاركين نط إليك لما أهم أرضي مركب مرة بالحال ربا إنه إلهي سبحانه وتعالى إن دينتي سؤالية الربا إن شاء الله تعالى دينتي أن كنت وصنانه أنا سعاونه إذا كان أحد يكون دار ما أرضيه إن وحبضان أخرسان إن شاء الله تعالى من قال كاس كوبان أيان ربينا إذا لو ذاقو دقيقتها aad ila joogteen wax walba oo muuqaalka aad ku aragtay oo inaad noogu mahad celiso waxyaabihii comment aad noogu reebto oo fariina si aan iyaduna mar kale idin kala wadaagno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuhu.